waxaan ognahay xalay ilaa shalay wixii magaalada ka socday kaambeynkii xukuumadda hogaaminaysa warbixintanka dhanka ahayd u ekaa in aad moodo in la ansixinayo xukuumadda ama kalsoonida ay weydiisanayso golaha shacabka waxaan aad uga xumahay in saameyn intaas leeg ay diiday xukuumadda isku kalsooneyn qabtana kalsooni dari kana muuqato inay mugdi iyo madmadow fara badan ay ku jiray waxaana garan ku guntanayso waxa la soo saaray ee guddiga maaliyadda uu soo saaray oo ah laba lagu daray inay afar tahay inaysan ka hadlin inay khaladkaan oo ku faraxsanaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ama guddi maaliyadda aan noqono ama baarlamaan aan noqono wasaaradda aan noqono waxaan rabaa qofka dhahaaya nambarka laba marka lagu daro laba maaha guddigani nambaro isku dara maanta ambaajada shirka guddiga loo yeero ma eedeen daloomay haddii cod la qaadayo wixii loo soo gudbinaayay baarlamaan weynaha waxay ahayd in cod loo qaado annaga miyaana loo yeero magaaladan joogay aniga maxaa lagu yeero maxaa la oran maanta cod baa la qaadaya imo masajka inta loo soo diray waa runtiis xildhibaankii ka horreeyay whatsapp baan leenahay email baan leenahay maxaa lagu soo sheegay cod baa dhacaya sahla kaalay codka wax ka bixi maxaa lagu ama dib ama yar miyaa lagu yiri ma la tusi karaa masajkii laga soo diray miisaaniyadii kunoqoshadii ahayd ayaa maanta qaraar kusoo saarteen qaraarkii kunoqoshadii miisaaniyadda 2018 idinka aad dhahdeen weliba qodobkiisii 7 uu ahaa in maanta warbixin maaliyadeed miisaaniyadda 2018 ayaa rabo in loo keenaa rabnaa aad dhahdeen ayaa maanta guddiyahaan aad usoo jawaabay arrintan aniga waxay leedahay waa arrin siyaasadaysan waa arrin qabjab weyn ay dadka waxaana waliba qofka dadka dadka darajada ka haysta wasaaradda amniga wala kale ama laga waxay maaragtay guddiga taariikh isku soo qaaday marka wadaaraha wasaaradii waa ka soo qaatay waatan meelaha maqal la yiraahdo tiwaafada والعادية صور كانوا وزارة كانوا يسوون جواب أيضا نذكر والله استعمال سيلو بنا ضد وضع وعن سورة الوجودية ويأخذ العكس من السوق هذا. قلت برنامج الصومالي القابس كلام كلام صعب وحالوك باهي هاي إنه يهاي بدية سودة إنه يهاي بدية أنا هاي مجلدة بدية مهمة هلا waxaynu joognaa Nilis Furniture Design fadlan waxaan idinka codsanayaa soo booqda Nilis Furniture Design waxaadna ka helaysaan alaab idin raali gelisa qiimo jaban bal ila eega sariirtan